dumarkii caruurtiyo odayada la dooxiyo culimada la daydayan kuwan jeelka loo diro dadkan suulamay dhalan dumarkii caruurtiyo odayada la dooxiyo culimada la daydayan kuwan jeelka loo diro dadkan suulamay dhalan dadkii halka marayay rasaas ba ooda lagaga qaaday rasaastaasi dadka may garanaynin ujeedada ciidankan magaalada soo galay uu rasaasta u farayo uu ka leeyahay runtii may fahmin laakiin waxa uu noqotay qofku sidoo uga carari karo rasaasta ama soo badbaadi karo mid guri gala iyo mid carara hooyo kufta iyo dhalaan sidoo kale dhibaato soo gaadho bay noqotay ciidankaas uu ku dagaalamay magaaladaas hub fara badan baa ooda laga qaado noocyada kala duwan hubkan la furanay ma uusan ahayn in yar kadib magaaladii waxay soo bedeshay meel laga guuray makaarul mataqaana laga hijrado kale noqotay dadku way baxsanayeen guryaha galayeen bakhaaraday galayeen qaar badan baa rasaas looga daadiyay مثلا nin la yiraahdo Ismaaciil oo ganacsada waxa hubaal ah oo la huba meesha ku dhaawacmay iminkana isbitaalka Hargeysa yaala oo dhiig feedhiisa laga shubo waxa cad in daaqada laga toogtay albaabka isagoo xidhay hubaal weey arrinka aan sheegaya kiba loo qabtay waxaan isleeyahay anigu dadka sababta loo qabtay ma ay jirin wax mudaharaad ah oo xilligaas soconayay ama dhibaato aloosnayd oo magaalada markaa ka muuqanaysay laakiin waxaan isleeyahay waxaan ku sababay karaa dadkii lagu furay hubka noocyadiisa kala gedisan ee dhibaatada faraha badan asiibtay ee waalidiinta iyo dadka jilicsan iyo dadka hubku ka caagan yahay sida haweenka iyo ciyaalka kale lahaa ayaa waxa la waayay in yar kadib hadii ma taqaan arintii la isweydiiyay wax lagu sababeeyo waxa dhalaanka loo khafaashay da'yarta ah ee teenage-ka ah ee iskuuladii ka timid ee ku socotay iyo goobaha maxadada iyo qaar meherada ku jira wax ka cunayay hadalkaasi saan u sheegay run ahaantii yahay waxa lagu sababeynay saddex wiil bay ahaayeen isku meel baa laga qabtay ay ka cuntaynayeen xilli waxay ahayd anumay 9 iyo barkii marka meel baa loogu galay ka cuntaynayeen wax wariyo xooyatoon kama haysi leeyahay qaatay Cabdi Khayr Maxamed Cabdi Jaamac Maxamed Cabdi Cabdi Samed Awil Salabaan dadka saddex laba kuwa bukay kuwa dhaawaca wax badan baa naga xiran wiilkaygu waa 19 jir isagana u weyn ardada meesha joogta ilaadan cali baa leeyahay anigoo la yiraahdo Aamina Cali Xaaji Aadan waxaan halkan cabashadayda ugu soo daayay waxa weeye awlaadayadii ayaa xoogna la kaga qaaday hubna xariista raabana la ku sii daayay waanu ololeynaa geela ilmihiisa ka reebka laga dhigo sida uu ololay ayaanu u ololeynaa naxariista raa nagula dhaqantay xabada naxariista raa nagula dhacday guriyihii nagaga dumiyeen
dadkii nagaga dhaawaceen awlaadayadiina furso iyo xoog nala kaga qaaday ayaanu halkan kaga cabanayna caalamka waxaanu u sheegayna oo muslimiinta u sheegayna oo haddii bahayd maayo xaquuqal islaamka iyo xaquuqal bini'aadannimadaba waxaanu intaba u soo bandhigaynaa in si xun oo naxariis darro ah in nala kula dhaqmay oo haddii bahayd maayo awlaadayadii xoog nala kaga qaado wiil aan gurigaba ka bixin maqaaxi yar buu u fadhiistay shaah sidaa markii hubkii loo furayna guri buu ku cararay guriga dhexdiisii baa laga soo jiitay waxaa la yidhaha maxamed axmed olol baa la yidhaahdaa wiil baa iga xidhan laakiin wixii xidhan oo dhan way wada qusay waxaa la yidhahaa najac maxamed cabsi magaca ashkiin axmed duraan baa la yidhaha inan baa iga xidhan casiis daahir warsama la yidhaha daadiisu waa 9 wax wara kamaan helin inuu xanuunsaday un baan ka war helay mar wallaahi warkiisa waa laga sixi waayay sida loo qabtay sandaqad buu hurday sandaqadii waa lagu jabiyay waa lagala baxay wax war oo dambe kama hayaano cabdilaahi xasan xirsi waa bareed munjir wax wara kama helin أنا شخص أنا بيجر محمد محمود يوانا للدليل مركز اللي قاضي ميل بعنتين مقاحي بعنتين مقاحي ولا قصدي ولا جودري قرد بدي ولا لا دعي سقوا بستين وهالك شوقي ولا إيش مقاحي شكر عين فرح ويل كاس وحالي هذا أحمد سعيد محمد سديدي تنشر ويه أحلو قبصنا قرن مايو مركز دولة الشرف راح نقعد سنة يا حرور تيادي بلا هذا الآن إنه لو جسوا دايو sababta ay ku tahay dadka waa la qabsada laakiin hadii la qabsado magaalada Jeel ma aysan waayeen carruurta lagu xiro mandheerana anigu waxaan u aqaanaa meel lagu geeyo dadka mandharinta la geeyo meel carruurta yar 8 jirka la geeyo uma aqaan baa iga xiran 14 jir Abdinaasir Diriya Farxaleeda isagoo xanuunsanaya ay suuqa ka doontay kiniinka harjabin isla markaana isagoo farmasiga hor taagan ayaa askarti qaaday waxaan isku taxalluujiyay meel badan baan maray inaan dhakhtar caafimaad aan marsiiyo maadaama waxaan xanuunsanayay wax ii suurta gali weeyay magacaygu Samsom Maxamed Ciise wiil ayaa iga xidhan 17 jir guriga ayuu maqribkii ka Axmed Cabdiliibaan guriga ayuu maqribkii ka baxay wadada shirkadda Lasko ayaa laga qabtay dabeedna waxa la sheegay in la figeeyay oo la dilay dabeedna gaarigiisa loogu tuuray wax wara kama helin waxa la yiraahdaa Saara Cabdi Warsame waxa iga xidhan wiil la yiraahdo Dayb Sheekh Axmed Cabul waxa weeye wiilkaasi maxad ku ii aaday maxad ku dhigan jiray maxadadaas u dhigan jiray fiidkii markuu adigu maxadkii ka soo rawaxay masaajidka soo maray salaada cisho soo tukaday ayuu guriga isagoo soo socda meel siiri baa la yiri iyagoo arday badan ka cunteeya meeshii meheradii ay kale islaam ka cunteeya baa loogu soo galay kutubtoodii iyo moobiladoodii meeshii baa waxa la yiri lagu daadiyay wiilkiina saasa lagu qaatay kama helin leeyna ma soo hadalsin wax warana kama helin hadila iyo hadana inuu nool yahay kama warayn aniga waxa leeyahay runbaaru tarabi waxa iga xidhan wiil waxa leeyahay aftax xamid abdi maxamed waxa weeye qoshaas uu ka yimi urti jeedkeeda wuxuu soo socday mustajaamaca salaada maqrib uu soo beegsanayay salaada intaan wali soo gaarno mustajaamaca soo gaarin baa la qabsaday haddana wax wara kama helin meel aan fursad kale helawaan waayay in loo soo daayay awlaadaas waa isku mid waa yar ma mutaysan dhulka la geeyay saasaan ku codsanayna wiil yar baa iga Cabdirashiid Cabdiraxmaan Cabdirashiid Ismaaciil baa la yiraahdo waa 18 jir guriga markuu ka soo baxay ka soo dhaqaaqay ciidamadii ka hor yimaadeen meel yar firan ugu galay maxamed ducaalaan la yiraahdaa waa 17 jir ku sugnaa guriga ka soo baxay oo dabada isagoo aan wali laangi soo gaarin baa laga qabsaday wax horaan ka hayo waxaan ma qoray aqaan meel lama xiriirin mana kana warhin